indhahayga wax ku fadhiyo waa ilin afkayga waxa ka guuxaayo waa hadal qofka idin hor fadhiyana waa socdaal waxaan ku kalaamayna waa wax idinku aad iga keensateen reer Puntland dad tihiin kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal si kastoo aad maqlaysaan oo ay daawanaysan waa aniga Socdaal Channel halka adiga daawanaysan waa YouTube ka Socdaal Channel iyo barta Facebook aan ku leeyahay ee halista photograph si kastoo aad daawanaysan oo ay maqlaysaan waxaan idin leeyahay waad salaamantihiin salaan guud iyo mid gaar ahaaneed waxaad ku mahadsan tahay daawada muuqaalkan daawashada aad daawanayso waan kaaga madcelinayaa mar labaad caawa halkan waxa soo fariistay inaan ka hadlo wax dadka idil ay soo wacayaan wicitaankaas oo aniga igu batay qalbigayga ku noqday wax aad u weyn gurigayga aan ka seexan iguna kaliftay halka inaan soo fariisto kadibna muuqaal aad duubo ku baahiyo baraha bulshada si dadka idil su'aalaha ay weydiinayaan arinkaas oo ah socdaal 1 Agoosto ma aadaysaa oo ma ka qayb qaadanaysaa dabaaldega 1 Agoosto arinkaas ayuu wuxuu ugu noqday wadna qabad kaas oo ah mid aniga aan ka seexan waay gurigayga aan ka jiifan waay ugu dambeyn waxa ay suurta gashay inaan muuqaal aan duubo dadkiin aan la wadaago waxa aniga qalbigayga maskaxdayda ka dhex guuxaayo haddaba daawade haddii aad shalay iyo daraad macnaa aad u heysatay una moodaysay in aan ka qayb qaadanayo munaasabada ka dhacayso Garowe aniga ka socdaal ahaan waxaan ku leeyahay waad iga raali noqonaysaa Garowe ma aadayo macnaheeduna ma aha Garowe hadii aan ma aadayo aan dhahayo macnaheedu ma aha aniga Garowe in aan nacbahay waan jeclaa Garowe 100% Garowena in aan aado aniga waxay ii tahay sharaf iyo sumcad ii tahay 100% waan jeclahay waxa dhacday aniga hees in aan soo qaaday oo Puntland oo 1 Agoosto taas oo aan kaga hadlayay 1 Agoosto oo aan dhahay biri ayaan tagayaa oo ay weydiinayaan arinka ay soo wadayaan oo weydiinayaan oo aan rabin in la wadaaga waxay tahay dadku idil waxay weydiinayaan hal su'aashaas waa maxay su'aasha ay weydiinayaan waxay tahay socdaal Garowe ma imaanaysaa oo ma ka qayb qaadanaysaa munaasabada 1 Agoosto ugu dambeyn wuxuu Ilaahay qadaray in halkan aan soo fariisto kana shaaciyo muhiimada waxa ay tahay Garowe waa jeclaa waana ku dhintaa 100% reer Garowena waan jeclahay reer Boosaasan waan jeclahay reer Qardhana waan jeclahay reer Puntland oo idil waa jeclaa 100% laakiin taageerayaashayda oo idil waxaan leeyahay munaasabada 1 Agoosto ma imaan karo inaan imaado aniga waa jeclahay wayna ii suurtagali weyso xitaa dad ayaa baxshay qarash oo aan ku imaanayo Garowe aan ku imaanayo oo ii fidiyeen casuumad dadkaas waxaan leeyahay macna halkan kama sheegay laakiin waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantiin casuumada ii fidiseen teeda kale halkan waxa soo fariistay taageerayaashayda macna inaan u sheego inaan iimaan karin Garowe oo aan ka qayb qaadan karin munaasabada Garowe sababtoo ah waxa aniga heesto ani ahaan socdaal ahaan arimo ay igu heesto macna xaalada ajraan oo aniga heestaan aan reeyay halka inaan ka sheego waan imaanaya Garowe waan imaanaya Boosaaso waan imaanaya Kalkacyo waan imaanaya Qardho waan imaanaya dhul Puntland oo idin oo degto dhan oo imaanaya waa tagaya 100% laakiin sorry afwan ka xuma 100% ma imaan karo 1 Agoosto ma imaan karo taageerayaashayda aniga xaafadeyda ka soo tagay guriga ka soo tagay studio gurigeyga waxa u dhaxeeyo waqti fara badan u dhaxeeyo bulshada reer Puntland dhamaan waxaan u sheegayaa waa mahadsantihiin 100% waxaana ku mahadsantiin casuumad aad ii fidiseen qof kasta oo reer Puntland oo dhig oo Puntland oo ku jiro oo ku dhashay Puntland oo ku dhashay wuu soo wacay wuxuu ii wargeliyay inuu imaado qof idhahayo imaanaysa Puntland iyo qof idhahayo kaala waxa anaa ku sameeynaa Puntland imaw ee naqad dhamaantood iyo qof ka munti qurxan oo sharaf iyo respect leh isoo qoro reer Puntland waxa tiin gobatiin ma ahan inaan Soomaali aan kala saarayo ma ahan Soomaali in kala soocayo reer Puntland waa walaalahey Soomaaliyo dhan way wada ismihiin laakiin reer Puntland waxa ay dareensiin ay tusiyeen in aan agtooda qiimo iyo sharaf aan ku leeyahay madaxa ay saarteen reer Puntland waxa leeyahay sida madaxa ay saarteen si lamida aan madaxa idin ku saartay waa maadsantihiin iyaar kasta oo Puntland ku dhashay waxaan leeyahay waxa taa gabar kasta oo Puntland ku dhashay waxa taa gob aan ku leeyahay waxa taa gob dhaaftay waa maadsan tahay waan ka qabaa casuumaadaada qof kasta oo soo telefoon gareey qof kasta oo qaab kale isoo raadiyay qof kasta oo si kasta isoo raadiyay waxaan leeyahay waa ku maadsan tahay laakiin way isoo degaleyso way dhacaysaa inaan imaado Puntland inaan imaado way dhacaysaa indhahayga wax ku fadhiyo waa ilin afkayga waxa ka guuxaayo waa hadal qofka idin hor fadhiyana waa socdaal waxaan ku kalaamayna waa wax idinku aad iga keensateen reer Puntland dad tihiin teeda kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago annaga hadii aan nahay socdaal team hadii aan nahay in aan leenahay production inaan leenahay inaan annaga aan duubno aroosyada inaan duubno in aan duubno seminaarada inaan duubno
in aan anaga macnaha aan leenahay macnaha wax soo saar inaan sameeyno xayisiinaad qaasatan ka socdaal ahaan ayaa ku sameynaya xayisiin haddii aad u baahan tahay haddii aad u baahan tahay aroos waa lagu duubaa haddii aad u baahan tahay seminar waa lagu duubaa haddii aad rabto u baahan tahay zawiraad nooca rabto waa laga qaadaa lambar ayaan hoos idinkugu soo qorayaa lambarkaas aad nagala soo xiriiraysiin studioha waxaa joogo halista production waa halista photograph waa wiil u carbiyeysan halista photograph waa wiil gacantiisu ay fadhido hadda muuqaalkan aad daawanayso waa ninka gacantiisa ku fadhiisiyey aanada youtube aa soo fariistay ilaa hadirtan haddii la duubayo muuqaal hayst iyo haddii la duubayo muuqaal caadi waa ninka iga duubo waa ninka aroosyada magaalada muqdisho kuwooda ugu waaweyn duubo waa ninka seminaarada magaalada muqdisho ugu waaweyn laga wacdo oo duubo waa haddii aad shalay u baahneed waxyaabo noocaasa waan ka qabtireynaa waliba aniga oo Soomaaliya mas'uuliyadiisa saaranta macnaha haddii aad u baahato waxyaabo noocaasa lambarkaas aan kugu soo qorayaa teeda kale waxaa jiro Facebook page oo aan leenahay oo halista photograph la yiraahdo page kaas booqda wixii macluumaadana xitaa page kaas waad ka heli kartiin oo maasantiin oo Soomaaliya iyo kalkacayo baran bariban tagiya gabdhooda udgoonka waxay ku dhaafeen qeyrkooda waxayba joogaan dhulkooda waxayba diidaan cadowgooda waxayba dhowraan dhaqankooda gobtee gobtaa garowe gobtee bilicda buusa